wanaagsanidu waxay kugu hagtaa hanusiga kalgacal marxeen dawladda qiimaha qadarinta laga badalo ku soo dhawaada barnaamijkeennii kabtanka maanta aynu ku eegi doono erebixinta iyo balse ay bulshada reer Togdheer iyo dhalinyarteedu uga qayb qaadan doonaan erebixinta afka Soomaaliga iyo waqti xaadirkan sidii isu bedelay waxaynu la dhexmari doonaa bulshada Togdheer iyo dhalinyartu balse ay uga qayb qaadan doonto erebixinta barnaamijkeennana waa kabtanka maanta waxaan la socodsiinayaa aniga wariye Filipin aan u yeero inanka garabkayga taagan walaal ku soo dhawo barnaamijkan waa kabtanka iyo maanta bal maxaad ka qayb qaadan kartaa erebixinta afka Soomaaliga iyo waqti xaadirkan xilliga halka waxa ka qayb qaadan Salmaan Maxamed Boos waxa uu dhashay gobolka Togdheer marka maanta waxa ka qayb qaadanaya erayada loo yaqaan bisaaradda erayada loo isticmaalo bisaaradda waxa kamid ah way noo galays han break inoo jid kabaha naga go'an karkar baan ku jirnaa magaalada waa iska soo kacay xidhay oo daawahan ku wadna intaanu de xaafadda waan ka soo kacnaa shaygan ku soo rinaa tigtaas aan soo fuulna ama waan bixinaa lacagta ama wadaalkaas aan kaga hadnaawad kuwa iyo kuwa kala badan marka way noo galaysay way soo xidhay gram baan ku wareegaynaa waxaas oo midhaan isticmaala maxaad kala qayb qaadanaysaa barnaamijkan oo kii kaftanka iyo maanta iyaro baan ka qaadanaya jacbur ka qayb qaadanaya oo ka hadlaysa jacayl ma ku yeelay jacayl wariyo jaanjaan ma ka dhigo nafta jeex ma kula dig oo ma qalaalay jidin komeladooda jiifka ma ku yeelay jacayl wari oo jaanjaan ma ka dhigo nafta jeex ma kula dig oo ma qalaalay jidin komeladooda jiifka saqad habeenkii jinnuxuma ku yimo jaas ma ku bilaabay jiboota adiguna sare ma u jiraado intii jiiftay dacalada iyo qolaale kala jira jagma soo yiraahdo maxaa jiray wiilkii iyo halka laga soo joogay isugu jawaabeen ma jirmaade waagiyada jooga dacalada Soomaaliland ta jigjiga dushadii jandar ma ku to qof jid ku kulanteen ma ku dhaana jacalay u jeedinata markuu jaahu muuqdana ma jawaab weedan ma jiro ilaa loo qof isticmaal baatin wada hadli karamaysaan haddana waxaan balka joogi doonaa qofkii labaad ee nasiibka u yeeshay inuu ka qayb qaato barnaamijkeena kaftanka iyo maanta haddana waxaa kala taagan khamiis xidhan walaalo magaca ka bilaabaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدبان سلام يا كفتك وعن سلام يا صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتاك بعدي كل برامج ورسوانا سودويننا وحن انتاك بعدي وحن كغيب قادنا يا أرمها الله استعماله مكا waxaa jirto oo ku soo badan sadarkeeni xagga ma garanaysa tuugto kale waxyaabo loo isticmaalo marka loo qoosinayo ereyada qoyska leeyahay wax loo isticmaalo ka qayb qaadanaya haddii aan qaarkood ka taabto waxa kamid ah waxyaabaha aan kaga qayb qaadanayo maxaan ku rahaayay haddii badankeeda leeyay waxay kamid ah dhalinyaradu aad u isticmaalaan hebel waa xariif waa maxaan ku rahaayay haddii badankeeda leeyahay waxa kale oo kamid ah ereyada loo isticmaalo xagga qoysinta nolosha loo fahmay maxaan ku rahaayay sida loo fahmay waxa weeye arrimo noocaas oo imka dambe waxa weeye fara badan baa laga qayb qaataa oo sirta nolosha fahmay hebel waa xariif waa haddii badankeeda leeyahay arrimahaas ka mid ah arrimaha laga qayb qaadan karo maxaad kala barnaamijka ka qayb qaadanaysaa barnaamijka kaftanka iyo maanta waxyaabaha dhaqanada isbedelay waxa weeye aan ka qayb qaadanayaa hal maxaan ku rahaayay maasayro adigu imika waa socodku bay wala kulanteena aan dhameystirin waxa weeye dhalinyaradu isbedeshay dhaqamadii aad bay isu bedeleen waxa jirta waxaan inama Soomaal gabadheera ay su'aal bawada giiji oo guud ka dhigtoodana gorgorno ka kacay geed ilaa moodo qaar koofiyad xidhan maarto aad moodo koofiyad ma garanaysan ay xidhan yihiin oo hawlashada geedka guud ka dhigtoodana gorgorno ka kacay geed ilaa moodo ya hablo iyaguna gedoodo amal waxa hablo gedoodo marka waagu guduuto waxaan u gubgeeyay la moodo marka waagu guduuto albaabku garaacaysa waa adduunyo guurto galgalato tagto gadaas la marayaa guulow noo sax taas ka qayb qaadanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi